رويال تي في وما توصلت للشيء مريس الجار أو كل شيء. أهلا وسهلا. إن سؤال شو هو الرئيس عن ربنا كودي حياتها إن سدوا أركتام كهر إن دولة دادة إن دودة إكش قيمة إن درك الصومالية أو صدق سنة كثيرة كبرى إن حياتها يكون بيست. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على بعد وحوارك دولة دادو إن لبعض سنة دور لجو جوليس وإن يكون جوليستي فضل إله أسكال سبحانه وتعالى ثم تذكير الشيء الصومالي أبنه هالنقدانه مثلا ما إن لا أبو ربيس صومالي أي دولة نما رسمية نبض هرمان يكون قالي كرت إنه لويا لمانت إن مدحين حاجرت إن روان عشكين من السعودية عشان يسوق إن اللبنان الرسول الصومالي إن مثلها عبشة سامين وأيكويا نكرت إن اللبنان هيدا السعودية odayaashu marka ugu horeysa ayaga laga rabaa inay qabiiladooda iyo familiadooda dadka ay ka soo xulaan ay ka fikiraan anaga waxa mar walba ku dhiirigelinayna war dad fiican soo xula barashar mar walba iska iimaana dad wax raba nin walba waa qayli doona laakiin qofka waxa sharaf u ah inuu dad fiican oo ku faani karo oo keeno baarlamaanka wasiirada go'aan ay soo saareen in shalay mar walba weydiina in waxa jirtay ra'iisul wasaarihi musharax xalay ra'iisul wasaarihi wareegto soo saaray هذا الكادي ويوجد بس هذا هي جرتين كدولة كم جارك أنت كلمة خلافة كل مسك وكحوم هاي كليته حكومة ده واحد لجربه هؤلاء أو تعالى لجربه أن يكون مشغولان لكن حفيزك إيجو صوم جعب أن يكون مشغولان أنا وحنا من سنة إنه يهاي وإحنا نصيب ضراء لكن هذانا بروسيس جب جوجا سامين خلافك وياك الآدي وكابنت محايا لي رئيس وزراء مشرح قدومية برلمان مشرح أنا مشرح أنا الأركب صندوق السوق وحوكها لو كقالدنا لكن وحافي أنا أنا يقول في عناد أيضا لسكوف في عيني هاي عن وحبة جرين إن ما شاء الله تقول دور شذا حلي يقول لو تلقى لو أعطنك أقصد ما دعي كرتايا سلام وأجعل لنا العضلة لكن حوجا إن الدب وقد عيسى مدة إن مدن مدحين إن حاجرت إن مشرحين إلا يطلبات كل وقت أي أتاجن إن حركة إن مدحين من الصومالي ويكمل رئيس الوزراء هذه يقدمه البرلمان إن مثل هذا هي كرسي كان أتوقف له إن كلمة جارة يوليه ما دام مشرحين بدن أتاجن waxaa u maleynaa haddaan iska kaftamo fadhiga aan ku fadhiyaa iyo marxaladda la soo gaaraa mid macaan ka dhiga marka dad badan ay soo istaagaan laftiga waxa ay tahay waa fiican tahay rajada aad ka qabto balkoor in 40 sano soo socota ku soo laabto boqolkiiba boqol waxaan ka qabaa inaan ku guuleysan doono kursiga insha Allah mudan madaxweyne waxaa jirta ammaanka magaalada Muqdisho inkastoo dawladdu markii ay soo dhisay wax badan ay iska bedeleen haddana ma isleedahay ilaa iyo hadda dawladdu kumaysan guuleysan ammaanka Muqdisho inay sugto gobolada dalka iska jira magaalada Muqdisho dawladdu inay sugto ku guuleysatay waa garan kartaa meesha hadda aan fadhino bila ka hor lama fadhi karin habeenay maalna magaalada la socda lama soo karin dal kasto adduunka ka jirana dhacdooyin waa ka dhacay dal 20 sano burbursanay oo alqaacida joogto inuu sidaan noqdo waqti kooban waxaan aaminsanahay inay wax weyn tahay haddana meesha kama baxsana in loo baahan yahay kor loo qaado habeen iyo maalina waxa laga hadlaa si kor u qaadna amniga dad badan madaxweyne waxa isweydiiyaan mushaaraadka ciidamada shaqaalihii u shaqeynaya hay'adaha kala duwan ee dawladda ku meel gaarka muddo 3 bilood ah wax mushaar ma aysan qaadan miisaaniyadii dawladda waa ay degsan dadku waxay ku xisaabinayaan xilliga kala guurka in saameyn uu ku yeesho doorashadii iyo saameyn ay ku waxa ugu horeeya waa xilli badxiran oo soo aaday dawladdana budgetka ku talagalku wuxuu ahaa in kaalmooyin ay hesho kaalmooyinkana muddo dheer ay maqan yihiin oo aan helin marka culays noocaas ah jiray laakiin waxaan rajaynaynaa xilliga soo socda in wax loo heli doono insha Allah سؤال هذا كودي مدحوية ضد بدهم حق سويدين قف مركو شقق وقطة قحوا صامر يا قانا أدوات أنت حلك هذه السي قانك وقتك وصامر محيه حليدي أن صامر أنا كل وضب يعني قانا على ضجع يوسف هذا
marka waxaan u baahanahay inaan inta aniga diyaar garoobo kulligii wareysha suunkii waxa aan kaga warramo wada mid u qaadan hadii kale waa ka xiisa dhacaysiin okay madaxweyne waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo gobolada dalka qaarkood gacanta dawladda ku gaarku waa ay soo galeen qaarkood waxay qorsheynayaan inay soo galaan ma jira qorshe loo diyaariyay inkastoo cabasho ay imaanayso haddana qorshe gobolada dawladda ku gaarka ay ku talagashay in ammaankii ay ku sugto nacam qorshe ballaarana loogu talagalay waana aragtaa u maleynaa hadda labada degmo ugu horeysa waxa laga sameeyay maalin walba sida horumarka amniga uu sii bedelayo ciidamada aan haysanaa waa kooban yihiin ina kordhiso ciidamada oo meesha la raba gaarsiisana waxay u baahan tahay dhaqaale iyo dadkuna waxay u baahan in la tababaro mushaarkoodii iyo garamkoodii la diyaariyo laakiin haddana waxaan ku talagalnaa waxa aan haysanaa inaan isticmaalno oo gaarsiino anagoo kaashanayna shacabka deegaanada kala duwan degan oo la abaabulayo beesha caalamka aragtida ay ka qabto Soomaaliya waqtigan maxay tahay qiimeynteeda aniga inay rajo fiican ka qabaan inay arkaan markii ugu horeysay 20 dhowr sano inay Soomaaliya soo gaarto meel fiican wax badan oo aan lagu guuleysan hadda aan lagu guuleystay waxa kamid ah magaalada Muqdisho 20 dhowr sano la soo dhaafay inay dawlad gacanteeda soo gasho ayadoo sidaana ma dhicin horumarka magaalada laga arkayo dib u dhiska iyo dadka ku soo laabanaya laftigiisu waa calaamad fiican Soomaalida laftigeeda dareenkeeda Soomaalinimo iyo dawladnimo oo kor u soo kacayo qof walba oo isxilqaamayo waxay bixinaysaa rajo weyn waxyaabaha soo dhan waxay dhiirigelinayaan international community su'aasha ugu dambeeyay madaxweyne aan rabaa aan ku weydiiyo dadka Soomaalida guud iyo dib u sugan kana walaacsan qaabka doorashada ay u dhici lahayd dhinaca ammaanka maxaad u sheegaysaa أنا waxaan leeyahay Soomaaliya maanta bisayl ilaa xad ay soo gaartay road map kan inta la wado waa hal sano waxyaabo badan oo markii la saxiixay Kampala Accord aan ugu xisaabtamay in dhici doonana dhacay oo lagu guuleystay haddana waxaan leenahay waxa lagu guuleysan doonaa in baarlamaanka la soo xulo madaxda la doorto dawladda la soo dhiso caadina u shaqeyso marka qof walba wixii dadaal oo dhinaciisa inuu ku aada fiican shabaab Muqdisho waxay ka geystaan dilal sidoo kalena Muqdisho waxaad hore u sheegtay xarakada shabaab aad ka safaysay misalada wali dagaalkii shabaab Muqdisho oo ku harsan waxaan rabaa inaan ku sheego jabhadaha habka u diraraan haddii ciidamadooda la jabiyo qorshaha labaad wuxuu yahay inay isku dayaan inay assassination ay sameeyaan assassination-kaas waa meesha ugu dambayso ay ku dhimanayaan marka aniga waxaan aaminsanahay meesha ay ku rafanayaan oo ay ku dhimanayaan taagan yihiin الله يبارك فرحة ميلا بيرين خد ميليسن غايريه فرحة ميلا بيرين